Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idin salaamaya ummadda Soomaaliyeed mataqaanaaye aan isku afka nahay. Waxaan rabay inaan ka hadlo arrin social mediaha dhex socota oo ka dhacday gobolka deegaanka Laascaanood oo aan ka soo jeedo. Run ahaantii wallaahi waxaan sheego ayaaban garan lahaa, yaxyax baan dareemaya. Wax allaale waxaan sheego iyo waxaan ku hadlo ayaan garan lahaa. Dadka reer Sool siday uga falcelin lahaayeen waxa ay sameeyeen iyo siday walaalahood u raaligelin lahaayeen ayaaban garan lahaa. Maxay ku hadli doonaan? Anigu hadda waxaan ku hadlaa baan garan lahaa. Sorry inaan iraahdo ayaaban ka xishoonayaa because waxa la sameeyey wax sorry la yiraahdo way ka ballaaran. In sorry la is yiraahdo run ahaantii dee wax goyn kara maahan. Wax aad iyo aad mataqaanaaye u xun oo u fool xun oo aan wanaagsanayn oo aan dad Soomaaliyeed laga filanaynin. Bal tusaale ahaan adigu iska soo qaad adoo gurigaaga iska jooga oo waxba filanayn oo ilmo yaryar haysta oo waxba haddii laga yaabo aan meelba kuu oolin oo waxba iskuu kaa diyaarsanayn. War iska daa masaafuriise marka aad meel yar u safrayso oo tuulo yar u safrayso waxaad ka sii fakaraysaa meeshii aad ku degi lahayd, wixii aad gaadhiga ku raaci lahayd, wixii aad sahayan lahayd, meeshaad ku degan lahayd. Bal ka waran adigoo warma qabtaa oo safar ku tala jirin oo waxba isugu kaa aadanayn oo ku tashanaynin oo sugaynin oo laga yaabee maantaba carruurtaadii inaadan caano iyo bariis u hayno aad suuqa ka raadinaysay waxay maantaba cuni lahaayeen. Marka inta suuqa dhexdiisa lagaa soo qabto lagu yiraahdo waa lagu safrinayaa. Ilaahay baan kugu dhaariyay bal adigu position-ka intaad nafsadaada istaajiso shocking intee leeg ayaa kugu dhici lahaa. War maynaad bini'aadan ahayn? Weligay Ilaahay kuma fakirin ummadda deegaankaana la degana gobolkaa degan. Dad noocaas ayaa gobolkiina ku nool. Dad sidaa u bini'aadantinimo xun, dad sidaa u fikir xun, dad saa u maangaabsan baa gobolkiina ku nool oo weliba madax ka ah. Weligay Ilaahay kuma fakirin. Run ahaantii waxaa keenay waxa isugu dhacay tolka, maangaab iyo dadka xun taariikhda iyo page-ka quruxda badan ee aanu dadka Soomaaliyeed kaga jirno. Dadka xun iyo maangaab ayaa isu kaa helay. Haddaan nahay dadka reer Sool, reer Laascaanood, waxaana helay dadka xun page-ka quruxda badan ee aan kaga jirno dadkeena Soomaaliyeed iyo dalkeena Soomaaliyeed iyo maangaab kursi yar iyo shilimaad yar eeganaya oo aan sumcad ka fakarayn oo sharaf ka fakarayn oo bini'aadantinimo ka fakarayn oo Soomaalinimo ka fakarayn keliya ka fakaraya kursigiisa iyo shilimaadka la siinayo. Run ahaantii aad iyo aad ayaa uga xumahay. Waana wax aad u fool xun waana dhaleecaynayaa madaxa isku sheega iyo waxaa sameeyey. Madax matiid who is madax maxaa ku tahay? Maxaad maamulo ku tahay? Maxaad hogaamiye ku tahay? Yaad hogaamiye u tahay Soomaalida iyo carruurta iyo dadka tamarta yar inaad badbaadiso noloshooda, life-kooda
amnigooda soo madaxu ma tihid. maxaad madax u tahay? madaxma waxaad ku tahay inaad dadka masaakiinta ah, dumarka iyo caruurta iyo dadka maxasta ah aad leeleeliso oo aad qaxiso. masaasaad ku tahay hogaamiye. aawe bini'aadantinimadii? soomaalinimo marka laga yimaado aawe bini'aadantinimadii? war wadamo ajaanibaa ku noolahay oo aanaan lahayn, oo calamadayada ku dhex qaadanaa, oo ku dhex lugaynaa, oo irsaaqad ka raadinaa, oo waxbarasho ka raadinaa, oo ku dhex noolaha. dadaanaan ku jinsi ahayn, ku midab ahayn, ku diin ahayn, ku dhaqan ahayn. maxay nagu soo dhawaysteen oo keliya? waa bini'aadantinimo inaan insaan nahay. war maxaa idinku dhacay? sharaftii baa nagaga ciyaarteen. sharaf ma lihidine, sharafta allaydinka qaadiye. wallaahi bilaahi kuwaa cuqubaa ku dhacayso. dadka soomaaliyeedna aad iyo aad baa uga raaligelinayaa. run ahaantii raaligelis yacnii anigu maba garan karayo qaabaan waxu raaligelino, maba garan karayaba dee. reer soola siday waxu raaligelinayaan, reer laascaanood siday waxu raaligelinayaan anigu maba garan karayaba. qaab nooceyna waxu raaligelineynaa. ilaa waxaan samaynay wax soomaalinimada ka baxsan baa samayseen. waxaa samayseen wax bini'aadantinimada ka baxsan, wax muslimnimada ka baxsan. maanta iyo caruur sutili daryeeli jiray. maanta iyo caruur sutili daryeeli jiray. waa maxay maanta iyo caruur banaan loogu faayay? maxaa khaldan? saas ma bini'aadan lagu yahay? horta reer sool xoogaa waan u yara garaabayaa because ayagaaba u dhow in lasoo raro. anigu waxaaban u malaynayaa mar dhow in iyaga lasoo rari doono because xataa ma mudaharaadi karaan baryahan dambe, soo ma ogidin. hadday mudaharaadaan xabad baa madaxa looga dhufanaya. anigu mudaharaadkii ugu dambeeyay aan galay dad dariskeena walaahi wiilal dariskeena gabdho dariskeena allah yarxam raaxime wiil aadan la dhihi jiray walaahi maskaxda xabad baa looga dhuftay. maskaxdiisa banaanka ku qubatay isagoon la xabaalin baa maskaxdiisu banaanka taal. waay maxaa lagu dilayay? soomaalinimaa lagu dilayay. dadka soomaaliyeed waxaa u sheegayaa dadka gobolkaas ku nool waxba lama noola, ma hadli karaan. hadday hadlaan xabad baa madaxa looga dhufanaya. ma fahmaysaa? wiilal aan garanayo, dhalinyaro aan garanayo baa qabriyo ku jirta somalilan awgeed inay soomaalinimo sheegteen, inay soomaalinimo afka kaga dhawaaqeen ayay xabaalaha ugu jiraan dadka qaar. gabdhaha xabadaha looga dhuftay oo lagu dhaawacay. ma fahanteen? marka dadka soomaaliyeedna saasaa uga qanxinayaa. dadka gobolkaas ku jira waa iska maxaabiis, waxba ma dhaamaan. soomaalinimona ma sheegan karaan. soomaalinimo qofkii sheegtana ama waa la xidhaa ama waa la dilaa. dadka haddaa aragteen idinku reer Hargeysa dad la xidhxidhayo, iyaga xabad baa sujuudda looga dhufta hadday soomaalinimo soo hadal qaadaan. marka run ahaanta aad baa uga xumahay in beej madow oo fool xun maanta aan ku qorannahay. dadka soomaaliyeedna waan ka raaligelinayaa. dadka reer soola ugu yaraan mudaharaada. awalba waa laydin xabadeyn jiray, daa laydin xabadeeye oo muujiya dareenkiina ayaa idin leeyahay. oo sumcad darada iyo sharaf darada iska leexiya. waxaan cawaaniinta ee madaxda ah inooga dhigteenna bedela ayaga dhan oo ummad caadiyaho. inaad siyaasi tahay, inaad somalilan tahay, yacni somalilan ahow yaa kuu diidan. somalilan in ahaato yacni inaad siyaasi tahay oo siyaasad ku jirto oo muqadis aad cid u tahay oo dowlad taageersan tahay, iyo inaad shacabka masaakiinta dumarka aad jijiidato. maxaa iska galay? yaa kugu shacabkan masaakiinta ee gobolka degan waxay kugu haystaan soomaalilannimada? waa maya. deegaanka ilaahay bay dhinac ka degan yihiin. yacni waxaan sii sheega ma garan karayee dadka cawaanka ah ee sumxaddii sharafta dadka aleeyay hala bedelaan leeyahay. wayba bedelmayaan cuqubada dadka ku dhaceysee.